isticmaalaa marka magacaas anaa la baxay oo samaystay magac isku aadan markii iskoolka aan dhiganayo macalinkayga oo carabiga wuxuu ahaa jiray Umar Faaruq hadda Aljazeera ka shaqeeya macalinkayga asaga jiray Bukhari aan dhigi jiray marka magaca meesha filmaha hindi waxaan iska daawo jiray inta xilligaas filmaha hindi la daawo jiray marka sunniga ana iska keenay Saciid sunniga waxa ka helay hindiga dhixiisan ka helay filmaha hindi daawanaya sunni hindi aad u baxda marka sunni Saciid Saalax marka magac sunniga inta helay aan waxaan Saciid Saalax hada ku dirtina waa okay magac oo siman waaye markaas saxaafada aad u xiiseynaa carabiga dhiganaya markaas iskoolka aan sida dhiganaya meeshii iga sunni meeshii iga soo raacday horta magacii ardayda sabuurada iska qori jiray marka maamul sabuurada iska qori jiray marka ardayda iskoolka hena ay bilaa sunni Saciid Saalax saan waaye oo wixii magacii marka magacii maskaxda ku markii aan saxaafada ku beerna magacii waxaan sax sameeyay magac maadaama uu unique yahay isku aadisan yahay iska isticmaalaan isla marka magac saasa uu ku yimid runtii markii dambe aad aqbalay ani kaliya ma ahan qof walba walkii aqbalay dadka qaar dad walba qof walba isna qaano macnaha family ha ahaadaan qaraabahadan wax waa aqbaleen ba iyaga magacaaga saxda ah magacayga saxda ah waxa la dhahaa magacyo badan hay xaafadada biisa laga yaqaan magacayga saxda waxa Cabdullaahi Maxamed Guural laha Gamaadid Maxamed Guuran waa magacayga saxda ah labaas magaca marka Gamaadid Maxamed Guuran iyo Cabdullaahi Maxamed Guuran magacaaga saxda ah qoyska kula baxay laakiin ciyalka xaafadda iyo magacaada la baxday iyo magacyo badan jira hadda xamarjiidu kale markii aan soo digo kale waxa jiray fanaanada aan qaada jiro macnaha biis ay ku qoranta elmana sameeyay jira magacyo badan waxa Allah naxariisto wuxuu sameeyay jiray macnaha qoriga marka fanaanada badan uu sameeyay jiray marka kooxaha elman waagi hadda elman iyo STN ay ciyaari jireen oo finaalka ugu weynaa Muqdisho ka dhacay wixii ka dambeeyay burbur ka dambeeyay kale marka fanaanada waxaan wada jiray oo maalin inta tartan ka qayb galnay oo meel nacso meesha nugu casoo marka meesha inta tagnay markaan tagnay wuxuu nasiiyay marka fanaanadu nasiiyay qof marka midkood markuu casmo oo dadkii yimaadeen wariyaashii waxbuu sii jiray hadiyadu sii jiray ama fanaanad ha ahaato ama wax uu dadka sameeyay jiray oo ay ku dhigan yihiin nabadda iyo qaalin waxbuu hal ku dhigiyo ajaa'ib lahu sameeyay jiray marka biis fanaanad iska qaadan jiray marka ciyalka xaafadda kale banaan marka aad jirno kale ciyalka xamarjiya isdhaceen biisi uu fanaanada maadaama uu jiray biisi ugu lijay marka oo nabadda ahayd oo xilligii uu noolaa elman sababta anaga waxaa jira elman baruuriya ciyaaraysa hadda finaalka ugu dambeeyay waxaa jira finaal caan ah Muqdisho ka dhacay jira oo istaad Muqdisho ka dhacay elman iyo ST ciyaaraya oo kooxda elman oo elman iska lahaa ST marka waxaa jira marka xilligaas waxay ahayd 99kii meelaha 98 meelaha amal ahayd marka istaad Muqdisho lagu qabtay waxa qabanaya waa elman laakiin elman ma nooleyn tartanka elman waqtar u dhintay waxaan moodan 99 bilowgeedina ka hadlaysan way ayaga macnaha sameeyay jireen hay'adiisa qaban jirtay tartamada iyo waxyaalahaas nabadda aad ay u qaban jireen marka inta badan waxay bixi jireen waxyaabo astaamo iyo hal ku dhigi waaweyn iyo tartamada ay qaban nabadda iyo waxyaabo inta badan ka shaqeey jireen marka istaad Muqdisho tartanka ugu horeeyay lagu qabtaba elman iyo waxa wada ciyaar ST wada ciyaar koobkii nabadda la dhigi jirta koobka nabadda marka nabadda isdhexgalkii marka wasaasha sagaalka beelahaas waay sunni runtii macluumaad fiican ka helnay dad badan waxaan filaa inay ka heli doonaan inay wax badan ka ogaadaan maanta Sunni Saciid Saalax yaad ku dayan jirtay tabinta sportiga oo adiga aad ku dayan jirtay Soomaaliya markaas aad isleedahay waa ku fiicnaayeen tabinta ciyaaraha Colombo inta badan aad runtii ciyaaris u xiisay jiray qaabka ciyaaraha u sheegi jiray inkastoo qaab aad u degan u ahaayo macnaha aad isla u ahaa haddana halku dhigidiisii qaabka u sameeyay jiray ciwaanada iyo waxyaabahaas aad runtii aad u jeclaa aad u heli jiray marka maadaama raadin Muqdisho inta badan laga soo deeyay jiray codkiisa iyo waxyaabihiisii barnaamijyo oo taariikhi inta badan laga sheekay jiray Cabdullaahi Colombo aad u dhigeysan jiray macnaha aad u xiiso badnaa marka xataa barnaamijyada marka Afrika ka shaqeynay xataa ciyaaraha NBA oo kale asaan ka wareysan jiray Mareykanka maadaama Mareykanka uu ku nool yahay asaan uu jiray waxa ciyaaraha Mareykanka marka uu ka sheekay jiray taariikhdiisii ciyaaraha u tabi jiray ciwaanada u sameeyay jiray iyo macnaha waxyaalo aad u cajaa'ib badan ay ahaayeen marka asaga runtii aad u xiisay jiray ciyaarihiisa aan diga tabintiisii qaabkiisii aad u dhigeysan jiray ilaa hadda codkiisu waa isku mid aad iyo isku mid wax isku bedel aad iyo dadku isku bedel codkooda marka Cabdullaahi Colombo waxa way aad u macnaha codkiisii iyo qaabku u sheegay ciyaaraha iyo aad u xiisay jiray iyo sidoo kale aadan Sabriin la yiraahdo asna oo Talyaani aad BBC asna ka shaqeey jiray iyo aad Saciid Cali Muuse waa okay laakiin ninkaas Saciid Cali Muuse uu kuma ahan laakiin aadan Sabriyaas ciyaarahaas u sheegay Talyaaniga uu tabinayo runtii aad ayadana xaraarad iyo xiisa aad u laajay qof Muuse u taalo marka aadan Sabriyo kale aad u jeclaa runtii aad u dhigeysan bixintiisa Talyaaniga marka ciyaaraha Talyaaniga horyaalka Talyaaniga aad u sheekay jiray marka aadan Sabriina aad runtii aad u jeclaa markuu ciyaaraha ka soo tabinayo Talyaaniga inkastoo markii dambe uu Saciid Muuse isku wada qaato wax dhan laakiin markii horyaalka Talyaaniga laga wareysanayo ama warbixin ka soo diraayo aad u xiiso badnaa jirta runtii aad u dhigeysan maxaa kamid ah erayada ka xusuusatay marka Colombo iyo aadan Sabriin labadaba macnaha kooxaha hadda macnaha ishaga cawiye maalin iyo soo u sameeyay macnaha hadda ninkaan Colombo kale iyo kooxaas macnaha hadda erayada ma wada xasuusto wixii dhamaan laakiin qaab u sameeyay jiray erayada iyo taariikh marka laga hadlayo sportiga iyo qaab hadalka u jijiida marka Cabdullaahi Colombo aad u jijiida hadalka macnaha dadka hadalka boobsiye ma ana waxaan dadka hadalka boobsiyo ordku boobsiyo maadaama waqtiyada iyo waxba lagu xisaabtami jiray macnaha marka meeshan 5 daqiiqo haysta lagu 5 daqiiqo waxaan wax
badan ana kusoo koobtaa la marka hadalka waa inaad boobsiisaa hore ku koobtaa waxaa ka dhan marka aadan sabri isoo ciyaaraha u sheegay Talyaaniga markuu ka hadlay qob moosa loo dhigay kooxdan sidii filniisma macnaha soo u ciyaaraha aad u sheegay aad u xisaab badan marka labadaas nin aad runtii u xiisay jiray dhageysigooda aad iyo aad maxaa isleedahay markaan ka hadalno asxaabtii aad la kortay aad la shaqayn jirtay Horn Africa ka tirsanaa iyo madaxdii Horn Africa iyo yaa saameyn kugu yeeshay oo koritaankaagii iyo ka qayb qaadashada idaacadda runtii dadkii aan la shaqeynay horta dhammaantood dad wanaagsan ahaayeen dhammaantood dad asxaab oo isku fiicnaan oo aad aan isku fiicnaan aad u qiimo badan ahaayeen marka runtii waxaan ka xasuustaa Falastiin Axmed Xaaji oo kale aad ugu xasuusan karaa Shiil oo kale Farax Beerri oo kale dad aad u wanaagsan oo macnaha soo dhaweyn laho ku sheekeenayo ku caawinayo Axmed Cabdisalaan oo kale runtii maamul qof walba Axmed Cabdisalaan Cali Iman Allah u naxariistay labaasna meesha ugu sareysay qof walba qof ku xirnaa jiray macnaha aniga aad Axmed Cabdisalaan ugu xirnaa jiray oo macnaha شاطر نجري هذه أحمد عسلان أنا قلت آد معناها صاحب وهن آد دو وهن ومعناها تاجر أبو بدن إيه هدي حتى وحيبة دعاني وكلافات دعاني نك أنت بدن معناها أمي تاجر أما ضدك معناها يلا نك فرح كقاضي لما هاللي كري أنت بدن يمال وهامرك أحمد عسلان علي من حلقة إنه قان كلي فكرة القاتل جاب لك أحمد عسلان أنت بدن وحوها ما دام برامج صدر ومضحكها أحمد عسلان نين آد وحوها معناها ضدك وجع لا إذا عضو معناها هدي ما أنت حتى دباتة تمادو معناها ده وحاس اللي قصوا عبده وحريك يقصوا عبتانه معناها صار كاسان موسمي وحنا وحديجر ما يديجر علي من حلقة بنو رسان ويا الله وعلى الله بيجري أحنا عشان ما يقصوا على حاجة سمين وده مثلا أحنا عشان وحوار إنه تاجر عجائب بدنا معناها كيل جل أحنا عشان آدي فارح بيري وكلنا آد أصلا وبقر ومعناها أنا معناها أبالكيسي فلسطين وكلا كنت أيضا وحواي وحول مرك الله فيه أقف آد سكورنا صاحب وهنا هاد معناها مرك سعيد تهليل سعيد تهليل آدي سعيد تهليل وكلي مرك ضد كاسنا آد كنت سكور وأنا صاحب هنا عندي كراهون فكرة ما أنتوا أصحاب توضعهن هذا لما أنتوا مرك الله فيه لكن ضد كآد سكور وينو دنا أول بتاجر أول مرك الله فيه عن كيلا ضد كاس وضعهن شادية سعدية ما حمدي محمد كدير محمد هذا لما أنتوا أصحاب لما أنتوا وده هاجرين دنيا الله ونحرس له كلي أنا محمد يري أنا محمد يري حقيقي شيء أنا بصفع هذا هي صباح يعني ما صباح عبد الله محمد صباح هذا نين هذا بقرة سجنها فرس مكان هذا قالي وها مركز كاس إنه هنتي وحيد أصاحب أسكود وينهم لكن ده كاس مرك لا فيري مركي وحي ما صوته حريك أنت بدل مركي وحلقة شيء الأذي أنت بدل وحي هاين ويسود عوجر معناه أنت بدل ما وحلقة شيء وحا كلي dad soo dacwooday inta badan cad soo wicina cali waan soo wax macbisnaa soo waxayaan oo ninkan saan naga sheegay waxaan waxba kama jirin kooxda taageerada hadi xiriirka iyo kubadda qolay boos marka laga sheegay runtii marka Axmed Xasan wuxuu ahaa nin go'aan isku aad ma jirto dhijir waxaan waxa waaye waa ninkaas wax la dhahay male waxa shaqada ka firisanay male saan waaye shaqadaada wada dhijir macnaha marka taas waxay wax aad cajaa'ib badan taageerayaasha ugu dhibka badnaa ugu cabashada badnaa maxaa kamid ahaa kooxaday taageeri jireen inta badan dadka markaan is aragno waxa ugu dhib badnaa dhigi karaa maxaan lahaa kooxaha inta badan AC Milan oo kale iyo xulka marka laga hadla Talyaaniga oo kale sababta Soomaalida inta badan u badan Talyaaniga aad u taageeraan marka Talyaaniga markii wax laga sheego kale iyo wax la dhaha sameeyay iyo qaabka u sheegaysa dadka ku dhilina marka inta badan waxa laga yaabaa marka garoomada isku aragtiin iyo banaanka isku aragtiin dib saasa ka sheegtay waxa waaye waa qalad waaye inaan saan u sheegto marka AC Milan kale iyo Talyaaniga oo kale iyo Arsenal oo kale iyo Man United oo kale iyo kooxaas Juventus oo kale iyo kooxaas taageerada sababta inta badan waxaan isku arki jirnay baar ubax iyo carwi iidki iyo meel kala duwan isku garoomada markaan isku aragno inta badan marka aadi ama telefoonkaas waxay ku leeyahay saas maahan saas waaye marka aadi u cabi jireen kooxaas mutaayirasha la fiiriyo adiga taageeri jirtay kooxahan aniga weligii kubadda cagta aadi horta weligii ala koox oo rasmi ah u taageer ma jirin oo kooxaha ciyaar marka la fiiriyo sababta inta badan inaan dhexaad ka ahdaan jeclaan jira laakiin kooxda ugu dhow oo taageer aniga Barcelona ay jirtay kooxda ugu dhow Xavi Iniesta iyo Messi dadkaas oo wada ciyaarayay Boyal dadkaas macnaha kooxdaas aad aniga kooxahan markii oo sportiga macnaha daawo badaawshidiisa iyo waxaas aan bilaabay iyo kooxdaas ay aad maadaama tarcaan oo Rijkaard iyo John Cruyff u soo ciyaaray dad koox caan ay ahayd kooxdaas runtii aniga aan ku soo hana qaaday macnaha kooxdaas marka aad u taageeri jiray inta badan markii inkastoo sanadii dhammaan u taageerin inkastoo nin xulkiisa aan taageero Messi liidado Argentina sidoo kale xulka qaranka Argentina aan taageero aniga oo mu ciyaari jiray sidoo kale ayadana saas camal ku taageeri jiray laakiin koox kale kooxaha Ingiriis kuliga koox kama taageerin kooxaha Talyaaniga kuliga koox kama taageerin laakiin Spain ugu dhaweyd Barcelona ay ahayd kaliya ciyaartoyda marka laga yimaado waxa laga hadlaa dadka tabiic ciyaaraha caalamka falanqeeya ciyaaraha waa laga cawdaa qaarkood kooxo waaweyn ay taageeraan laakiin iyagoo sheegaya xaqiiqda wararkii dhacay ayaa haddana marka qaar faaladooda kooxdii markay ay adkaatona waxa laga yaabaa inay ku tiirtirsadaan oo erayo la yaab loo isticmaalaan kooxdii kale ay mataqaanaa halkaas
kooxda kale ka caroodaan dad taageerayaashu ah mararka qaar ma jirtaa cid aad ku talax tagi jirtay oo jeclayd inaad ka faallooto markay jabto runtii ma jirin runtii ma jirin waa ma jirin koox aniga maadaama kooxaha inta badan taageersaneen oo haddaa kooxaha aad taageer u tahay marka hadda ingiriis oo kale iyo talyaaniga oo kale haddaa kooxooda maadaama kooxo waaweyn yihiin oo taageerayaal badan Soomaaliya ay ku leeyihiin ay yihiin haddii oo macnaha ay dhacdo in koox aad looga awood badiyo ama koox aan rabay inaan aad ugu tigso oo macnaha aan sharaxaad badan ka bixiyo ma jirin runtii ma u samay jirin kooxdan waa taageersanta ama kooxdan waa taageersanta marka ma jirin runtii inaan koox aad ugu taagsado oo koox oo macnaha ama kooxda kale ugu heli ma dhici jirin caadi sida caadiga ah warbixinta ay tahay oo sida xaq uu yahay oo sida wax u dhaceen inaan u sheega laga yaabo haddii markaas ma ogi kooxdaas oo kale aad gool badan loogu badiyo dhibaato badan macnaha sidii la filayo koox idoo la filayo waxaa jirta guuldarro xun ay soo gaarto kale marka guuldarradaas oo kale wixii la filayo markaas oo kale inaan sheega maahane wax kaloo ka dheeriya kuma dari jirin wariyaasha كلنا يتاجر جرين بدكم انت بدك تاجر جرين انت هذا بدل مركان هورتن افريقيا انت لبدي لبا كوبان كتبينا marka barkun laga soo tago koobka adduunka katibinay iyo marka la hoon afrika marka la fiiriyo koobkii oo 2004kii 2004 oo Europe oo Portugiisku qaadayay kaasku iyo mid kale waxa jira 2006 koobka adduunka katibinay hoon afrika labaas baa katibinay marka wariyaash marka sakawad qeyna aniga Nadar Bakay Farax Berri wala badnaa dad wariyaash intaas ay wada ahaayeen marka maanta qof aan Argentina taageeri jiray Farax Berri Jarmalku taageeri jiray باكاي فرانسيسكو اي عبد الله كالقعل ما عبد الله كالقعل اي باكاي waxay isla taageerina francisco isla taageerina hadaan qaldaneen nadaar ninka noogu faatalis nadaar waxa talaani u taageeri jiray ninka noogu faatalis talaani waxa asoo taageeri jiray marka idaacada maantii aan wada nimaano asaga waa la ogaas magaalada dhexda laga yaqaan talaani la taawakara marka talaaniga macnaha ciyaar koobka adduunka 2006 ayaga qaado talaaniga qaado Argentina kala meel xun ku hartay macnaha Jarmalka waa iska haray marka Francisco waxay isku soo haray waxay talaaniga ahaayeen oo talaaniga qaado koobka adduunka marka asaga waa lagu meel la dhigaal waayeen marka maanta idaacada leeyahay nin aad u fataalo warbar waa wada inuu faaro caadi aad u faan jeclaa marka idaacada aad loo jeclaa marka nadaara keena saan waay sababta warka nin waxa ahaa talaani taageer kooxdiis waa difaaca si fiican u difaaca maanta asaga xataa ama beenaha ama ruuxa wax marka nadaara kala ma qadarna Abdullah Kalgacali waa iska caadi iyo waxa la Farax Berri iyo waxa laga yaabaa wixii dhacay inay sheegan laakiin asaga too much u badi jirno nadaara taageeraysiis marka aad u faraxsanaa jireen teeda kalena macnaha talaaniga marka dadka taageero dhaxsaas waay talaaniga aadi Soomaalida aad ugu badiyeen marka fiirisko xulka kala dadka taageero talaaniga marka fiiriso talaaniga dadka taageero waa dad aad u meel adag waay macnaha amarna ama beenaha aadan waxa rabaan igu sheegaan macnaha aad iyo aad waayahay markaad xusuusato Afrika markan ka hadalno waqtigaas nin dhalinyaro ah oo maxaa la yiraahdaa magaalada Muqdisho ku koray oo fursad u helay inuu ka shaqeeyo idaacadii ugu weyneed magaalada ee Afrika ahayd waqtigaas markaad dib u milacsato dadkii wanaagsanaa iyo xaaladda lagu noolaa iyo maxaad u xiistaa ugu xiistaa hoon Afrika inkastoo xusuusto meesha qadal laga cuni jiray maqaayadda horta aad waxaan u xasuustaa macnaha waxa aad u tabaaho macnaha sidii wax macnaha waxay ahayd idaacad qaabkii macnaha ay u dhisneed idaacadda systemka u dhisneed wariyaasha iyo barnaamijyadoodii macnaha wax la ajaa'ib leeyahay macnaha qaabkii loo sameeyay idaacadda iyo qaabka u dhisneed iyo barnaamijyada u bixi jireen qaab barnaamij loo sameeyay wariyaasha iskugu xirnaayeen oo kale iyo macnaha dad aqoon dad macnaha heer kala duwan la macnaha kuwa sare kuwa dhexe kuwa hoose inta badan iskugu jiraan wada shaqay jireen iyo macnaha magaca iyo sumcadda ajaa'ib leh macnaha sumcada leh idaacadda macnaha hadda banaanka aado qof sumcad leh oo xushmad leh oo sida had maanta kale macnaha iska dhaxyaaca ma laakiin waagaas waxay ahayd qof guriyaha iyo waxa la sheegay nidaamka idaacadda iyo saxaafadda iyo wax sumcad iyo nidaam leh ahaayeen macnaha meeshii la tago waxa waaye qadarin sumcad hebelaa yimid uu leeyahay fadhiga la kaca waa lagu soo dhaweena waa lagu qadirina macnaha magacaas iyo sumcadaas waxay ahayd wax aan inaba la qiyaasi karin macnaha dadka si ku qadirinayaan dadka say ku macnaha ku soo dhaweynayaan ku marxabeynayaan macnaha meel walba tagto macnaha waxay ahayd wax ajaa'ib leh marka taasaan wax la qal iyo amaanka waagad hadda amaan macnaha iyadoo waxba ay jirno hogaami kooxda kali ay jireen waxay ahayd wax la yaab leh macnaha qof wax ku dhahay ma lahan qof wax ku dhahay ma lahan inta ka baxday inta ka qof ku dhahay ma lahan xilliga artaa soconaysa meesha artaa tagaysa marka taas runtii wax ajaa'ib leh iyo systemka idaacaddu sinay qadada iyo wax la isku imaana inta la sheekaysto qadada barnaamijyada laga soo baxaa qadada iskugu imaana meesha lagu tukada la farsal sportjena isxiifaaleen amaantana marka waxay ahayd wax ajaa'ib leh macnaha si dadku ay isku wada xirnaayeen macnaha taas wax ajaa'ib leh runtii waxa kaloo ay hon Afrika
qiimo ku yeelato waxay ahayd xarun waxbarasho ahayd tababar iyo shaqo isgarab socdo qof kastoo shaqeynaya tababar buu helay baltaa ka sheekay meeqa tababaraad fursad u heshay aniga 3 tababaraa fursad u helay runtii intaan Norway ka shaqeynaayo waxay ahayd wax kaliya oo runtii aan ku amaani karo Norway waxay ahayd meel aad ka shaqeynayso haddana tababar ku siinayso oo macnaha lacag ku qaadanayso tababar inta lagu siiyay hay'adaha ajnabi intii wadi